Kulanti wanaagsan daawade meel walba oo adduunka ka joogto kuna soo dhawow warbixin aan ku eegi doono maalmaha xorriyadda. Maanta waa 1 Luulyo sanadka 2021. Maxaa dhacay maanta oo kale 1960kii 1 Luulyo? Waxaan marka hore uga hambalyaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed munaasabadan qaaliga ah ee 1 Luulyo. Waxaan leeyahay farxad ku ciida isla markaana dib loo eego taxanaha taariikhda gobonimo-doonka Soomaaliyeed. Ummad waliba waxay leedahay taariikh ay ku faanto iyo munaasabado ku dheer oo lama ilaawaan ah, kuwaas oo la xuso oo laga sheekeeyo halgamadii iyo maalin walba waxay wanaag iyo tiraanyo ummadda u leedahay. Maalmahaas ayaa waxaa ka mid ah maalin qaran, maalin qoys, iyo mid shakhsiyadeed oo mid walba mudnaanteeda loo xuso, taasi oo mudan in mid walba mudnaanteeda la siiyo oo xuskaas la xusayo uu noqdaa mid lagu xusayo muxaadarooyin diini ah iyo in laga sheekeeyo wixii wanaagsan. Haddaba maanta waa 1 Luulyo 2021 oo ah maalin taariikhi ah oo aad u weyn, isla markaana xasuus dheer mudan, ahna maalintii la helay dowlad Soomaali ah ee ugu horreysay ee dad Soomaaliyeed oo xor ah maamulaan, isla markaana la laabay calankii gumeysiga laguna beddelay mid Soomaali ay leedahay. Dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxay u diyaar garoobayaan xuska 1 Luulyo oo ah maalin taariikhi ah oo qiimo badan u leh ummadda Soomaaliyeed. Munaasabadaas waxaa lagu xasuustaa xorriyaddii Koonfurta Soomaaliya, la midoobay Waqooyiga, iyo dhalashadii Jamhuuriyadda Soomaalida markii uu sanadku ahaa 1960kii. 1 Luulyo 1960kii waa maalintii gobollada Koonfur ee Soomaaliya ay ka xoroobeen gumeysigii Talyaaniga, isla markaana ay la midoobeen gobollada Waqooyi, halkaasna ay ka curtay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Iyo 26kii Juun oo iyadana ahayd maalin taariikh iyo xasuus dheer mudan. 26 Juun waa maalintii ugu horreysay ee ciidda amase geyiga Soomaaliya laga taago calanka quruxda badan ee uu alifihii caanka ah ee Maxamed Cawaale Liibaan ee naxariistii jannaha ka waraabiyay. Waxaana halkaasi gabay qiiraanyo leh calanka u tiriyay abwaanka caanka ah ee Cabdullaahi Suldaan Timcadde, waxaana ka mid ahaa maansadii uu habeenkaasi tiriyay ee ay ka mid ahaayeen ereyada ah: "Sareeyow manusqaamow aan siduu yahay eege ka nasiib kana saar", oo uu ula jeeday in calankii gumeystaha meesha laga tuuro. Waxaana farxad iyo reenreen ay u ahayd maalintaas dhammaanba bulshaweynta Soomaaliyeed, waxayna maalin murugo u ahayd gumeysigii meesha laga saaray ee Ingiriiska iyo Talyaaniga. Waxaanse shaki ku jirin in caalamka dadka ku nool qolo waliba ay marba heer soo martay taariikh iyo weliba waayo kala duwan. Waa maalintii xornimada laga helay gumeystihii saan-cadaalaha ahaa oo bulugley ay dabayluhu kululeeyeen daaraha dushooda. Waa maalintii ugu horreysay ee qaranka Soomaaliyeed laba midowday oo hal dowlad ah yeesheen, oo horey u ahaa British Somaliland iyo Italian Somaliland. Waa maalintii hanka Soomaaliyeed kor u kacay oo lagu hamiyey loona hawlgalay in la helo qaran Soomaaliyeed oo dhammaystiran. Waana maalintii aan ku heesnay qolaba calankeedu waa cayno, innaga keenna waa cirka oo kale oo aan caadna lahayn. Shayaalka taariikhda halganka Soomaaliyeed. Halgankii ummadda Soomaaliyeed ee ay hoggaanka u soo hayeen gobonimo-doonkii Soomaaliyeed taariikh ahaan wixii ka horreeyay qarnigii 18aad, inta aynan bilaaban duulaankii dhulka Soomaalida lagu qabsaday. Soomaalida waxay dhaqan iyo dhaqaale ahaanba aad ugu xirnaayeen caalamka Islaamka, gaar ahaan dhulalka xeebaha ku teedsan ee Banaadir, Kismaayo, Berbera, Bandar Qaasim iyo Boosaaso. Qaybintii dhulka Soomaalida kadib waxaa abuurmay nidaamyo ku cusub bulshada Soomaalida, kana duwan xeerarkii iyo shuruucdii ay ku dhaqmi jireen dadka Soomaaliyeed. Waxaana aad u yaraaday xiriirkii ay Soomaalida la lahaayeen dalalkii Islaamka ahaa, iyadoo meelo badan oo ka tirsan dhulalka Soomaalida ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo lagaga soo horjeedo maamulkii soo galootiga ah ee gumeystaha. Dhaqdhaqaaqyadii ugu caansanaa ee lagaga soo horjeeday gumeystaha waxay ahaayeen kii Axmed Garaad Ibraahim Axmed Gurey, sida la ogsoon yahayna ahaa halgankii Soomaaliyeed kan ugu caansanaa, ahna halgamadii ugu horreeyay ee lagaga soo horjeestay gumeystaha. Axmed Garaad Ibraahim Axmed Gurey oo halgankiisu bilowday 1528 dhammaadayna 1543, Axmed Gurey waxaa u suura gashay inuu jabiyo aabbihii boqortooyadii Xabashida uuna gacanta ku dhigo xaruntoodii. Xabashidu waxay ka fursan weyday inay u yeerato ciidamo shisheeye oo difaaca. Halgankii Axmed Gurey waxaa ku xigay kii halgankii daraawiishta oo 21 sannadood dagaal ay ku naf waayeen kumanaan mujaahidiin ah, ayna ku barakaceen in ka badan dadkii Soomaaliyeed ee ku noolaa gobollada Waqooyiga. Qaas ahaan gobolladii xarunta u ahayd daraawiishta waxaa hogaaminayay
halyeygii lagu magacaabi jiray Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan, waxaana daraawiishtu halgan weyn ay kula jirtay gumaysigii Ingiriiska muddo ka badan 20 sano. Markii ciidamadii badda iyo kuwii beriguba ka huleeleen daraawiishta, waxaa Ingiriisku go'aan ku gaaray sanadkii 1919 inuu xagga cirka ka weeraro ciidamada daraawiishta. Qorshahaas oo Ingiriisku fuliyay 21 Janaayo 1920. Maalintaas oo xarumihii sayidka ee Taleex ay soo weerareen diyaaradihii dagaalka ee Ingiriiska oo noocooda lagu sheegay inay ahaayeen DH9 sida taariikhdu qorayso. Ugu dambeyntiina halganka daraawiishta ayaa halkaasi ku jabay, kadibna Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan iyo daraawiish wixii ka hadhay ay u baxeen xagga iyo koonfur, waxaana la sheegaa in Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan ku geeriyooday degmada Limeeyey 23 Noofembar 1921. Haddaba waxaan eegaynaa tix ka mid ah gabayadii sayidka ee gubaabada ahaa. Anaa diiday dagaal in aan la galo daalin iyo col dalka ma lihid anigaa ku iri dooro weynaha anaa diiday nabadiisa aan daacad noqonayni, anaa diiday deeqdiisa ay naari daba taale, anaa diiday maantuu lahaa duunyo iyo hooye, markay duusho gaaladu anaan daabadu qabane, kolka ay dareeraan anaan duul xamaal noqone, diinteyda anigaan ku gadan dabaqi naareede, anaan labada daarootan hore darajo moodayni. Dardaarankii uu Sayid Maxamed ka tegay waxaa ka mid ahaa: daban buu idin qolayaa weydin dagayaaye, dirhamkuu idin qubahayaad dib u go'aysaane, marka hore dabkuu idinka dhigin dumar sidiisiiye, marka xigana dabaqaada waa dareensiine, marka xiga dushuu idin kararayn sida dameeraha marka xiga dalkuu idinku oran duunyo dhaafsada marka haddaan dushii adari iyo imey dacal dhaafay, waxaad iga dambaysaanba waa deerta maanta maxaad igaga digataan beri buu siin la soo degaye. Sidoo kale waxaa jiray halgamayaal badan oo dhiigooda iyo hantidooda u horay dhulkooda hooyo, waxaana ka mid ah halgamaa Maxamed Cawaale Liibaan oo ahaa halgamayaashii gobonimada Soomaaliya ka soo hooyay gumaysiga, wuxuuna caan ku yahay dhammaan gudaha Soomaaliya, wuxuuna caan ku ahaa uuna sameeyay calanka Soomaalida 1954 jirayna micnaha qotada iyo xeesha dheer ee calanka Soomaalidu xambaarsan yahay, kaasoo ah: 1. digta cad ee 5 gees leh, 5 qaybood ee dhulka Soomaalidu degto ka kooban yahay. 2. midabka buluugga khafiifka ah, cirka iyo badda dhulka Soomaalida oo mar walba midabkoodu buluug yahay. Calanka Soomaaliyeed waxaa markii ugu horeysay taariikhda la saaray 12 Oktoobar 1954, isagoo ka dhex badbaday calamadii Talyaaniga iyo jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa, iyadoo halgamadaas ujeedadoodu ahayd sidii dib loogu celin lahaa dhibaatooyinkii dadka Soomaaliyeed ee gumaystuhu wadaagay ama qaybsaday. Horaantii sanadkii 1940 waxaa qaybo badan oo dhulka Soomaalida ee gacanta u galay gumaysigii dalka qabsaday ka bilowday dhaqdhaqaaqyo tiro dhaafay. Sidoo kale waxaa iyagana la xusi karaa dagaalkii siyaasiga ahaa ee gumaysiga looga soo horjeeday, waxaana majaraha u hayay xisbiga SYL oo dhidibada loo aasay 15 May 1943. Xisbigaas baaqa halkudhigga uu ahaa waxaa ugu weynaa ereyada ha noolaato, oo macnaheedu ahaa waa in qofku naftiisa u huraa sidii uu aayatiin iyo nolol sharaf leh ugu abuuri lahaa jilka ka dambeeya. 13kaas dhalinyaro waxa ay kala ahaayeen: 1. Yaasiin Xaaji Cusmaan, 2. Cabdiqaadir Saqaawudiin, 3. Cusmaan Geedi Raage, 4. Maxamed Faarax Hiloole, 5. Maxamed Cusmaan, 6. Maxamed Xirsi Nuur, 7. Daahir Xaaji Cusmaan, 8. Xaaji Maxamed Xuseen, 9. Cali Xasan Maslax, 10. Maxamed Cabdulle Xasan, 11. Maxamed Cali Nuur, 12. Dheere Xaaji Dheere, 13. Khaliif Huddo Macalin. 13kaas dhalinyaro fikraddii wadaninimo oo ay keeneen waxay noqotay mid lagu liibaanay, xaqiijisayna midnimadii iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed, waxaana halgankii SYL mirihiisii la gurtay 1960 markii 1 Luulyo ay qarannimada qaadatay koonfurta Soomaaliya ayna la midowday waqooyiga Soomaaliya oo iyagana ka xorowday Ingiriiska 26 Juun 1960. waxaana dhalatay markii ugu horeysay taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaase nasiib darro noqotay in daraawiish iyo dadkii taageersanaaba aanan ka helin wax abaal ah dowladihii Soomaaliyeed ee xorriyadda kadib awooda qabtay. Maalintaasi qiimaha badan waxay dadka Soomaaliyeed xasuusinaysaa aabbayaashii Soomaaliyeed ee dhiigooda iyo naftooda u horay inay dhisaan dal Soomaaliyeed oo madax bannaan, kaasoo dadkiisa ugu adeega si gobonimo leh.
Aabbayaashii u soo halgamay dhismaha iyo jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed waxay dagaal siyaasadeed oo ka culus kii gumeystaha reer Yurub ay gaashaanka uga dhigeen cadowga xabashida. Geesiyaal badan ayaa naftoodii qaaliga ahayd u horeeyay, dhiiggoodiina u daadiyay difaaca dalka hooyo. Hase yeeshee, nasiib darro in halyeydaasi magacyadoodii aan qaar badan oo ka mid ah la diiwaangelin. Ha yeeshee, ummaddu iloobi mayso ciddii u soo halgantay, camuuduna ma diimoona ciddii dhibic dhiig ah u qabtay. 1 Luulyo waa maalin qadarinteeda iyo xusuusteeda mudan, aysan iloobi doonin bulshooyinka Soomaaliyeed ay ku dheehan tahay waxa la yiraahdo waddaniyadda. Waa maalintii ay xoroobeen gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya, waana isla maalintii iyo midoobay gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee ay ka xoroobeen gumeysigii caddaa ee Talyaaniga. Ingiriiska Talyaanigu waxa uu gumeysan jiray gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya, Ingiriiskuna waxa uu gumeyste ka ahaa gobollada waqooyiga Soomaaliya. Waana maalintii ugu horreysay ee uu gumeysiga caddaa ee Talyaaniga uu ka guuro gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya, waana Israaciil iyo weliba midowgii Soomaali weyn. Xilligaasi waxaa la doortay madaxweyne, waxaana loo doortay waqtigaas Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde, oo isaguna isla bishan Juun sanadkii 2007 ku geeriyooday magaalada Nairobi. Waxaana sidoo kale ra'iisul wasaare loo doortay Cabdirashiid Cali Sharmaake, oo labaduba ka soo jeeday gobolladii koonfureed. Meesha Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo weliba Garaad Jaamac oo ahaa odayaashii horkacaya siyaasiyiinta reer waqooyi ay nasiib u heleen jagooyin wasiirro ah. Halkaas oo ay ka bilaabatay wax isku quruwaa iyo kala sadbursi awoodeed oo kow u noqday Soomaalidii sida walaaltinimada ah isugu soo hilowday. Si kastaba ha ahaatee, ummadda Soomaaliyeed oo in badan ku hamin jirtay in la helo qaran Soomaaliyeed oo la yiraahdo Soomaali weyn, ayaa hadda moodaa inay adag tahay in sidaas lagu heli doono. Waxaa lagu qoslaa ninkii ka shaqeeya Soomaali weyn, iyadoo halgankii lagu xoreyn lahaa NFD Ogaadeniya ay ka dambeysay inay maanta intii kaleba ku jiraan gacan gumeysi cusub oo caddaan iyo midowba leh. Maanta oo ay 1 Luulyo tahay, waxaa nasiib darro ah in qarannimadii iyo midnimadii loo soo tiir iyo tacab beelay oo ay farahoodii ka baxday. Sharaftii iyo cizigii ay Soomaalidu lahaydna ay maanta tahay mid ku dayacan daafaha dunida oo dhan. Qof walba oo Soomaali ah waxaa qasab ku ah in uu mar walba maskaxda ku hayo maalmaha xorriyadda ee Soomaaliya. Tan iyo intaan ku eegi doono barnaamij ka lamid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaan Allah.